waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii soo kordhay intaynu kala maqnayn xaaladda gobolka bariga dhexe. Iiraan oo weerar ku qaaday maraakiib isku dayaysay inay ka gudbaan marinbiyoodka Hormuz, isla markaana fariin u dirtay maraakiibta sheegtay inay raacayaan hadallo qaldan oo ay Mareykanku siinayaan si ay halkaa uga gudbaan. xaaladii ugu dambeysay marinbiyoodka Hormuz barnaamijka ayaynu ku faahfaahin doonaa. Trump oo sheegay inuu diyaar u yahay wada hadalka inuu fursad siiyo. waxaa sidoo kale aan idiin soo gudbin doonaa heshiis xalay Trump uu sheegay in markaa lagu gaaray arrinta Gaza oo hubka ay ku dhigayaan Xamaas. Al Jazeera ayaa goordhow sheegtay 5 arrimood inay caqabad ku tahay dhaqangalka heshiiskaas durbaba. haddaba sida ay wax u socdaan iyo heshiiskan Gaza laga gaaray iyo xaaladihiisa ayaynu barnaamijka iyadana qaybta dambe ku faahfaahin doonaa. inta ku jirno wixii soo kordha warar waan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya iyo geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi. waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road. aad aragto wuxuu ka bilaabanayaa 4 bedroom desk U, 3 bedroom desk U iyo 3 bedroom desk U iyo 2 bedroom desk U. adeegii guri lahaa oo dhanna waa wataa. shirkaddu maanta waxay idiin soo gudbinaysaa qiimo dhibid aan ugu magac daray hoygu waa muhiim hantiyeelo oo soconaysa 5 bilood. hadda ka hor qiimo dhibidii aan soo celinay 2 bilood ahayd walaalo badan baa ka faa'iideystay oo dal iyo dibadba jooga. haddana mar labaad waan soo celinay. waxaan ugu baaqahayaa bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa joogta inay ka faa'iideystaan adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud. waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira. naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya. haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan. jimca wanaagsan mar kale meel kastoo aad joogtaan. barnaamijku waa kii labaad. maanta waa jimce, taariikhduna waa 31 bisha 7 2026. haddaba barnaamijka waxaynu ku qaadaa dhigaynaa warar waaweyn oo soo kordhay intaynu kala maqnayn. ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa marinbiyoodka Hormuz oo laga soo sheegayo in weerar uu ka dhacay. haddaba goordhow telefishinka Al Jazeera ayaa baahiyey ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan in ay weerar ku qaadeen maraakiib isku dayaysay inay iska dhaga tirto hadallada Iiraan oo ay halkaa maraan. haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay. warkan ayaa waxaa la sheegay inay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan iyagoo sheegay inay beegsadeen oo ay weerareen 2 markab oo kuwa shidaalka qaada oo marayay marinbiyoodka Hormuz. haddaba warkan ay soo saareen ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa lagu sheegay in maraakiibtan ay isku dayeen inay halkaa ka gudbaan oo markaasi warka ay iska dhaga tireen saakay. waxaana la sheegay in ay taageero ka helayeen dhanka Mareykanka oo isagu markaa ku qalqaalinayay inay halkaa maraan. labada markab ayaa la sheegay inay noqdeen bartilmaameedka Iiraan oo la garaacay. waxaa sidoo kale la sheegay 4 markab
oo kale inay markaa dib isaga laabteen oo ay carareen kadib markii ay arkeen labadan markab oo halkaa lagu qararamsaday. waxaa leeyahay labaa la qararamsaday, waxay iska dhigi tireen sheekada Iiraan, Mareykanka warkiisay raaceen, 4 kalena way soo daba socotay. markii labadan nagta laga saaray 4tii kale masaarkoodii ama meesha u socdeen waa badeen, gadaalay u carareen. maba qarsanaysaba Iiraan. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa goordhow soo saaray saaki shaqadaasa meesha ka qabanay dheel. haddaba marka way sii faahfaahiyeen sababta ay hawsha u qabteen marka maxay tahay. haddaba waxaa la sheegayaa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay yidhaahdeen sheegashada Mareykanka ee ah in la socon karo oo la mari karo marinbiyoodka Hormuz ay tahay been inay tahay. haddaba taliska ciidanka badda ee hoostaga ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxay sheegeen marinbiyoodka Hormuz inuu xiran yahay oo cid ka gudbi karta aanay jirin oo markaa ciidamadoodu ay kontroolayaan. sheegashooyinka Mareykanka ee ah in halkaasi ay maraakiib ka gudbi karaan inay tahay wax aan waxba ka jirin. waxaana ay sheegeen in ay been tahay sheegashada Mareykanka oo ah inay iyagu kor kala soconayaan maraakiibta. ma ujeedaa? marka waxaan leeyahay ciddii isku soo gudubta meeshan ayadaa ka mas-uula. Hormuz way xirantahay leedahay Iiraan, wax ka gudbi kara male. Mareykan hadda ciddii uu soo gudub dhaho ayaday u taalaa. marka waxay leeyihiin asagu ma soo gudbo, asagu ma gudbi karaa horta intuusan adiga ku gudbinin. maraakiibtiisa waaweyn miyay ka gudbi karaan? maya. si adi kuu gudbinaa marka soo gudub kuu dhaha. marka sheekadaas marka iyaduna way qasan tahay. Iiraan waxay leedahay meeshan yaa laysku soo marin. marka saakay labada markab ayay halkaa ku dubteen oo ay ku qararamsadeen. sheekadu marka wararkaasu halkaasay marayaan. war kalaa soo baxay laleeyahay ninkii Trump ahaa wuxuu leeyahay wadahadalladan fursad siinaa. laakiin wadahadallada fursad ha siiyo dhib ma lahan, waa caadi. wadahadal fursad waa siinaya, duqeymaha waa yareeyay waa dhihi kartaa. laakiin hadalkiisa hadal lagala soo dhex baxay uu leeyahay hadday Iiraan aqbasho xabad joojinta. warkaasu waa war weyn. marka Mareykanka asagaa waxay ahaan jirtay in laga baryo xabad joojin. Mareykanku waa inuu xabad joojin ogolaada. hadda isagii yaa baryootamaya, wuxuu leeyahay Iiraan xabad joojin ha ogolaato, haddii kale Iiraan waa iska kaana soo weeraraysaa. awoodda fiiri Iiraan. Aljazeera yaaban oo qoraal ka diyaarisay, hadalkiisaysa saartay. hadalkan uu leeyahay waqfa idlaaqi naara waxaan ka rabnaa inay aqbasho oo ka dalbanaynaa Iiraana laga dalbanaya xabad joojinta. meesha caadi baan oga Iiraani taaydi tuso telefishinka Aljazeera wuxuu leeyahay mas-uul Mareykana ayaa wuxuu yiri Trump wuxuu doonayaa in markaasi la gaaro heshiis xabad joojina in la gaaro doonayaa. warkan waliba waxaa qoraya la leeyahay wargeyska la yiraahdo New York Post ee Mareykanka ka soo baxa oo soo xiganaya mas-uul Mareykana. Trump wuxuu diyaar u yahay inuu wada hadallada fursad siiyo, laakiin waa marka eregan weeye, laakiin waxa uu ka dalbanayaa uu doonayaa muwaafaqada ama ogolaanshiyaha Iiraan ee ah in xabad joojin la sameeyo. wuxuu ka dalbanayaa Iiraan xabad joojinta inay aqbasho. Iiraan xabad joojinta Iiraan laga baryaa hadda. Iiraan sooto ay tiri mar hore annaga xabad joojin dhan baan noo qorna. maalinka rabno weerartamayna maalinka rabno waa joogaynaa. sida la isaga joogay diyaaradahooda waxay nagta ka saarayaan meel, haddana waa iska joogayaan. xabad joojin maba yeelayna dheheen annaga. adi haddaan rabto soo weerar ama iska dhaafaday ku taala. marka ninkan wuxuu leeyahay waxaan dalbanayaa xabad joojin, annaga wada hadallada fursad waa siinayna. marka sheekadaasu waxay ka mid tahay sheekooyinka wareersan ee Trump. waaye ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada,
luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadin dugsiga markazu daaru taqwa. qaybta ugu dambaysa waxaan rabaa bal inaan faahfaahin kooban ka bixino heshiis warbaahintu ay ka hadlaysay xalay ilaa saakay oo arrinta Gaza ku saabsan. ma dhabba ma la heshiiyey? xamaas hubkeeda ma dhigaysaa? hubka ma dhigaysaa? mayidhe xamaas meesha waxa la isku haya inaan fahamno waay. heshiisaa la gaaray, xabad joojintii maaragtay xamaasa hubkii dhigaysa. sax maahan ay leedahay jaziira, wax saxa maa waxaas. heshiiska waxaa ku jira leedahay wax aysan Israa'iil aqbalayn. muxuu yahay? hubkeenna waa dhigaynaa, makhaasiinaa gashanaynaa ay dheheen. cidaan Falastiin ahaynna ma loo dhiibaayo. oo fiirsada meesha kaartada ku jirtaa. hubka waxay dhaheen xamaas waa dhigaynaa, waa la xisaabinaa, makhaasiinaa ku xaraysanaynaa, dad Falastiiniyiina aa loo dhiibaa. gazalow yaalaa hubka. Israa'iil maxay lahayd? hubka hala dhigo, hala burburiyo, hala gubo, ama ani hal iisoo dhiibay lahayd. taas marka waa mid. laakiin shardiga ka horeeya marka in hubka ay makhaasiinada geliyaan waxaa ka horeeya Israa'iil inay baxdo, insixaab kaamil inay ku baxdo, Gaza ka baxdo. Israa'iilna maxay leedahay? awal waxaa noo ah hubkan in la dhigo oo la baabi'iyo hubka xamaas, markaasaa baxaydha. marka wixii heshiis maa la gaaray. caalamka ruwaayad marka loo jalayaa le. marka aan idin tuso aljaziira oo warbixin gaara ka samaysay sheekadaas. haddaba waxay leedahay kadib markii heshiis la gaaray dhanka hubka ku saabsan, 5 arrimood ayaa ka hor imaanaya durbaba guddida maamulka Gaza oo la doonayo heshiiska la gaaray inay meel mariyaan. haddaba maalgelinta iyo mushaarka waa caqabada koowaad. hirgelinta hay-adaha qaybta waxay u baahan tahay helitaanka maalgelin lagama maarmaan ah oo loo bixiyo mushaarka kumanaanka hubka laga dhigayo oo shaqaalaha ah oo mushaarkooda iyo wuxooda la diyaarinayo. lacagna lama hayo. midda labaad, xiriirka xamaas. inkastoo xamaas aysan ka qayb qaadan guddigan loo sameeyey maamulka Gaza, haddana joogitaankooda goobta ayaa ka dhigaya leedahay jaziira howlgalka sii socda in markaasi ay raad ku yeeshaan oo ay mar walba iyagu yihiin kuwa meesha jooga. waayahay midda saddexaad waxaa leeyahay xaqiiqada dhulka ka jirta. haddaba xaqiiqada dhulka ka jirta maxaa waaye? dhaqdhaqaaqa iyo xakamaynta Israa'iil oo meel walba Gaza ka degan ayaa u suurtagelinaynin guddidan maamulaysa inay Gaza meeshay rabaan ay maraan oo ay socdaan. Israa'iil oo iyaduna ka taxadaraysa inaanay ka bixin ilaa hubka laga dhigo xamaas halkaas. midda kale ee caqabada waxa way leeyahay mustaqbalka guddigan laftirkiisa. guddigan maamulaya Falastiiniyiinta waa dad Falastiiniyiin ah, laakiin waa guddi doorkoodu uu yahay mid ku meel gaar ah, laakiin sii socoshadiisu ay weheliso taageerada caalamka iyo maalgelinta. waxay soo bandhigayaan walaac ah guddigan laftirkiisu ma sii jiraya mise ma jiri karo. midda ugu dambaysa oo qodobka ugu dambeeya caqabada waxa way mowqifka Israa'iil. mowqifka Israa'iil ayaa wali ah qodobka ugu saameynta badan marka la eego maamulka military ee Israa'iil ee sii socda oo qaybo ka mid ah marinka Gaza hadda jooga oo xakameynaya iskoosyada Gaza qaarkood. diidmada dib u soo celinta awoodda xamaas ayay ku adkaysanaysaa Israa'iil iyo waliba shakiga ay ka qabto soo celinta maamulka Falastiin qaabkiisii hore. marka waxaan leeyahay waa iska sheegid, waa iska ruwaayad, wax shaqayna ma. xamaas iyo qolooyin kala waxay ku shireen Masar. xamaas ay adiga ma ogolaatay inaan hubka dhigno. xamaas waxay roobku waa dhigaynaa, laakiin makhaasiinadeena gelinayna. dad Falastiiniyiin ilaalinay meesha ku jiraan, laakiin marka meesha gelineen ka hor waa in Israa'iil ayadana ka baxdaa meesha. waa la gaaray heshiis ninkii Trump heshiisa la gaaray xamaas hubka inay dhigtay ogolaataa le.
waxaanu caqabadaha marka waa la isgaadayaa meesha waxaasaa ku qoran marka saasuu la socda waa heshiisoo la gaaro bale meeshaan xamaas hubkeeda inay iska dhiibto iyadoo saas jugta loogu hayo ma anfaca wax anfacay ma marka sheekadaasu halkaas ayay maraysaa wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkeena aanu soo qaadanay maanta waa barnaamijkeenii labaad wararkiisii ugu waaweynaa ayaynu halkan kusoo gudbinay laagaray oo sheergaray barnaamijka asxaabay inta aan mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay jimca mubaarak nabadgelyo